kooxda UN Monitoring Group ayaa warbixinteedii sanadlaha ahayd oo la soo daayay toddobaadkan dhammaaday waxa ay qaybo ka mid ah kaga hadashay Somaliland gaar ahaan saldhigga military ee Imaaraadka laga siiyay Berbera iyo heshiiska ay DP World kula wareegtay dekedda magaalada Berbera. Warbixinta waxaa lagu sheegay in codayntii ay golaha wakiiladu ku ansixiyeen heshiiska DP World iyo weliba codadkii ay labada gole baarlamaan ku meel mariyeen heshiiskii saldhigga military ee Imaaraadka Carabta ee Berbera ay banaanka u soo saareen walaac musuqmaasuq ee laga qabo in si khaldan loo isticmaalo hantida qaranka. Warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay in mas'uuliyiinta shirkadda DP World ay wakiilka Somaliland u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta ay soo mariyeen 5 milyan oo dollar, taasi oo ku socotay wasiirka maaliyadda Samsam Cabdi Aadan oo lagu sheegay inay tahay horumarinta 15 milyan oo dollar oo kharashka kirada dekedda Berbera. Warbixinta ayaa waxaa lagu laray sawir ay wasiir Samsam Cabdi Aadan oo gudoomiyaha banka Maxamed Cabdi ku wareejinaysa lacag dhan 5 milyan oo dollar, taasi oo ay Somaliland raacisay warbixintii ay u gudbisay shirkadaasi. Warbixinta waxaa lagu sheegay in xildhibaanadii ansixiyay heshiiskii dekedda Berbera la siiyay min 15,000 oo dollar. sidoo kale ansixintii saldhigga military waxaa xildhibaan kasta la siiyay min 10,000 oo dollar. waxaa warbixinta lagu sheegay in 9kii bishii May ee sanadii 2016 ergo ka socotay Somaliland iyo Imaaraadka Carabtu heshiis isfaham kala saxiixdeen kaasi oo ku saabsanaa dekedda Berbera. Warbixintu waxa ay sheegtay in sida heshiiska ka muuqata ay DP World horumarin ku sameyn doonto dhulka suuqa xorta ah ee Berbera, maalgashi horumarina ku sameyn doonto dekedda, sidoo kalena ay dowladda Somaliland ka taageeri doonto dhismaha jidka Berbera ku xidhay xuduudka Itoobiya. waxaa sidoo kale warbixinta lagu soo qaaday sida DP World iyo dowladda Somaliland u kala leeyihiin saamiga heshiiska dekedda Berbera. Warbixinta oo ka hadlaysa fadhigii golaha wakiilada ee lagu ansixiyay heshiiskii dekedda Berbera ay DP World kula wareegtay waxaa lagu yidhi 9kii bishii August sanadii 2016 golaha wakiilada Somaliland ayaa shir ku yeeshay Hargeysa. shirkaasi oo ay goobjoog ka hayeen 73 xubnood, 9 xubnood ayaana ka maqnaa. gudoonkii golaha ayaa xildhibaanada ku wargeliyay in madaxweynuhu uu DP World u doortay in horumarin ku sameynayso dekedda Berbera. xildhibaanada waxaa lagu wargeliyay in DP World ay soo bixisay 5 milyan oo dollar oo ah wejiga hore ee 15 milyan oo dollar oo kharashka wareejinta dekedda ah, taasi oo wasiirka maaliyadda Somaliland Samsam Cabdi Aadan u soo marisay wakiilka Somaliland ee Imaaraadka Carabta Baasha Cawil. warbixintu waxa intaasi ay raacisay waxa kale oo markaasi lagu dhawaaqay in dhammaan xildhibaanada mashruucan taageero la siin doono midkiiba 15,000 oo dollar. codkii la qaaday waxa uu ku ansaxay 69 xildhibaan oo ogolaaday iyo 4 xildhibaan oo ka soo horjeestay. warbixinta UN Monitoring Group oo ka sii hadlaysa fadhigii labada gole ee uu gudoominayay gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland ayaa waxa lagu yidhi 12kii bishii February sanadii 2017 waxaa labada aqal ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada loo qabtay fadhi lagaga wada hadlayay saldhigga military ee Imaaraadka Carabta ee Berbera. gudoomiyaha guurtida Salebaan Maxamuud Aadan ayaa fadhigaasi hagayay. waxa uu xildhibaanada ku wargeliyay in madaxweynuhu golaha soo hordhigay codsi ah inay ansixiyaan saldhigga military ee Imaaraadka Carabta ka hor cod qaadista 8 xubnood oo wadani ah oo ka soo horjeestay heshiiska ayay ciidamada ammaanku si cad uga saareen dhismaha baarlamanka, waxaana codkii noqday 144 ansixiyay iyo 2 ka soo horjeestay. xildhibaanadii u codeeyay saldhigga military waxaa la siiyay min 10,000 oo dollar. warbixinta UN Monitoring Group ayaa sheegtay in labadaasi fadhi ee lagu ansixiyay dekedda Berbera iyo saldhigga military ay banaanka soo dhigeen walaaca laga qabo in hantida qaranka si khaldan loo isticmaalo. marka lagu daro raadadka ka dhalan kara cunaqabataynta hubka, waxaa dheer in labadaasi codeymood ay kor u soo qaadeen walaacii la xidhiidhay musuqmaasuqa iyo suurtagalnimada in si khaldan loo isticmaalo ilaha dhaqaale ee dalka. warbixinta UN Monitoring Group ayaa lagu sheegay in intii kooxdani ku jirtay socdaallada Somaliland ay bishii May ee sanadkan la kulmeen mid ka mid ah wasiirada culus ee xukuumadda Somaliland, kaasi oo aanay magacaabin balse kooxdan u sheegay in dowladda Somaliland ay u ogolaatay Imaaraadka Carabta inay dib u habeyn ku sameeyaan madaarkii hore ee Berbera si ay ugu shaqaystaan saldhig military ahaan, kaasi oo ay diyaaradaha ciidamada ee Imaaraadka oo qura isticmaali karaan muddo 25 sanadooda. waxa uu mas'uulkaasi ku wargeliyay saldhigga loo isticmaalo keliya kormeerka badaha si loola dagaalamo burcadbadeeda, isla markaasina loo isticmaali doonin weeraro.
waxaase warbixintaasi kasoo horjeestay mas-uul labaad oo ka tirsan xukuumadda oo si cad u sheegay in saldhigga imaaraadka u isticmaali doonaan tababar sahan iyo howlgallada militari ee yeman. sawiro dayax gacmeedku qaaday oo la helay intii u dhexaysay bishii disembar ee sanadii 2016 iyo bishii sebtembar ee sanadii 2017 ayaa muujinaysa in meel ugu badnaan 2 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta dhabaha diyaaradaha ee madaarka berbera ay ka socdaan dhismayaal. waxaana warbixintani isla saakaba lagu daawacay bogga hore ee wargeeska geeska afrika ee kasoo baxa magaalada hargeysa. waxaana la filayaa maalmaha soo socda in kooxda UN Monitoring Group ay baadhitaan ku sameyn doonto wasiirada xilalka sare ka haya xukuumadda Somaliland. Wafaad Axmed Kaariye, warlaliska telefishinka caalamiga ee bulsho.